akulanti wacan saaxiibayaal halkani waa warsida TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamkaba. kadib markii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay dib ugu soo celisay darajooyinkii laga xayuubiyay Saadiq John uu ka xayuubiyay madaxweynihii hore dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ataliyihii hore booliiska gobolka Banaadir Saadiq John ayaa durbaba bilaabay inuu ku milmo qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed. arrintan ayaa aad waxay uga xanaajisay General Odawa Yuusuf Raage. General Odawa Yuusuf Raage ayaa arrintan aad uga falceliyay kuwana dhibaatada ay leedahay arrintan u gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu maqan safar dhankaas iyo Puntland ugu waabay Odawa Yuusuf Raage inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib u soo laaban doono arrintan la dhexgali doono. Saadiq John ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin go'aan adag, taasna waxaa marqaati oo ah inuu noqday halkii qof ee ka hortagay inqilaabkii uu sameyn lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kadib isku daygii muddo kororsiga uu isku dayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hordhigo baarlamaankii federaalka Soomaaliya. Saadiq John ayaa lagu xasuustaa arrintaas inuu ka biyadiiday kadibna ay ku soo dhamaatay fashil. dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Saadiq John ku abaalmarisay darajooyin dheeraad ah iyo dib u soo celin loo sameeyay darajooyinkii hore uu ka xayuubiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saadiq John ayaa durbaba bilaabay intuu maqan yahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo kullid ah Odawa Yuusuf Raage iyo Xijaar. ataliyaha booliiska ciidanka Soomaaliyeed General Xijaar ayaana arrintan weli ka jawaabin dhankiisa, laakiin siday u muuqato dad badanna ka warhayaan ayaa taliye Xijaar iyo General Odawa waxay ka warsugayaan soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu tilaabo ka qaado General Saadiq John una sheego inuu ku ekaado shaqadiisa. dhanka kale warar aan helayna ayaa sheegaya in Saadiq John uu maalmaha soo socdo qorsheynayo inuu iska wareejiyo xildhibaannimada baarlamaanka Soomaaliya maadaama loo celiyay darajooyinkiisii uuna qaban doono shaqooyinkiisii hore uu ka qaban jiray caasimadda gobolka Banaadir. Saadiq John ayaana u suurtagelin doonin dastuurku inuu isku qabto labadan shaqo. khilaafkan General Odawa iyo Saadiq John ayaa ah mid soo shacbaxay maalmahani. ay saarantahay Soomaaliya annaga Axmed Madow baan noo madaxweyne waad ku dari kartaan waad u kordhin kartaan arrintaasi sidaasay naga tahay. anigu waxaan ku hadlayaa jiifka. sidaad ku maqlayseenba madaxweynaha isku bedelay boqorka ee Axmed Madow ayaa kulansiiyay jiifafka iyo caaqilada iyo suldaanada Jubbaland, halkaasi ay ka soo saareen war dheeraad ah oo ku saabsan muddo kororsigiisa. odayaal dhaqameedka ayaa sheegay inta tareenka indhaha la ay Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degayo ama ka damayo inuu meesha joogi doono Axmed Madow. taasi ayaa ka dhigan inuu Axmed Madow qorsheynayo inuu xilka sii hayo ilaa uu ka dhamaysanayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrintan ayaa lagu sheegay halka sano uu ku darsaday Axmed Madow inuu yahay inuu fiiriyo qaabka ay ula dhaqmayso xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. dhanka kale Axmed Madow ayaa wado u furay maamul goboleedyada kale oo ayaguna rajeynayay inay ku darsadaan min hal sano una fududeeyay hawshii muddo kororsiga. maamulada qaar sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed ayaa ayaguna rajeynaya inay ku darsadaan min hal sano si ay u arkaan qaabka ay ula dhaqanto xukuumaddan Xasan Sheekh Maxamuud. dadka khibradda leh ayaa sheegaya in haddii xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay qaab khaldan ula dhaqato Jubbaland ama Puntland ay sameyn doonaan iska caabin iyo iskaashi dheeraad ah. wararkaan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in Axmed Madow uu ku baaqay shirkii wadatashiga maamul goboleedyadu iskugu imaan jireen xukuumadihii hore oo loogana tashan jiray aayahooda looguna tashan jiray xukuumadda markaasi joogta si looga hortagi lahaa tallaabo kasta ay maamul goboleed kasta ku soo qaado. arrintan ayaa lid ku noqonaysa xukuumaddan curdanka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud, sababi kartana Xasan Sheekh Maxamuud ololihiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa inay noqoto xukuumaddii ugu horeysay ee 5 maamul goboleedba hal mar ka soo wada horjeestaan. arrintan ayaa sahlaysa in Xasan Sheekh Maxamuud uu maamul goboleed kasta oo wasiiradooda ama xildhibaanada oo ka agdhow u magacaabay agaasimayaasha ay lid ku yihiin ama ka soo horjeedaan maamulada goboladaas xukuma.
dhanka kale Axmed Madoobe ayaa ah nin aan si sahlan ku tagi karin kursigana uga degaynin maadaama uu yaqaano jaranjarka siyaasadda Soomaalida warar aan helayno ayaa sheegaya Axmed Madoobe inuu ku xiran doono maamulka Koonfur Galbeed si halkaasi loogu sahlo wadahadal asaga iyo Itoobiya ah adawadayaal waa naga intaas wixii war ay naga soo gaaray maanta fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto wararka warkan xiga mahadsanideen